kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta hawada nagala socotay kusoo dhawaada qodobada wararkeena ugu doorka run oo halkan aad ku dhageysan doontaan hadduu eebba uu idmo. madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa cabsi daraadeed wuxuu ka bixilayay madaxtooyada kadib markuu ciidamo uu ka shakiyay madaxtooyada ilaaliyo isku hayb ay yihiin Faysal Cali Waraabi Cabdiraxmaan Ciro. waxaa kaloo qodobada wararkeena aad ku maqli doontaan wasiirka gaashaandhiga Cabdullaahi Nuur iyo Mukhtaar Roobow ayaa waxay rabaan howlgal ay hogaaminayaan oo ururka Al-Shabaab lagula dagaalamayo in laga bilaabo dhinaca Jubbaland ay ka degto koonfur galbeed ilaa iyo Bay iyo Boqol ay sii gaarsiinayaan halkaasoo lafta garan uu shaki weyn ka muujinayo Mukhtaar Roobow iyo wasiirka gaashaandhiga dagaalkan ay hogaaminayaan. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo maanta ciidamada furimaha hore dagaalka kula hadlay ayaa waxa uu sheegay ninkii dilaa nin Al-Shabaab oo sargaala ninkii dilaa in uu siin doono 4,000 oo doolarka Mareykanka. dagaalka maanta waxaa ku biiray gobolka Hiiraan ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan beesha Murursade waxaana kasii horeeyay marka hore beesha Habeergidiro iyadana dhinaca iyo Guriceel kasoo dhaqaajisay. waga Baryaani waxaa la sugahayaa beesha Abgaal ciidamadeeda ayagana in ay dagaalka Hiiraan qayb kamid ah ay ku biiraan ururka Al-Shabaab si gacan loogu dhigaa dhamaanta gobolada uu haysta ee beesha Hawiye ay degan tahay. barnaamijka waxay ula sugan saaxiibkay Cabdi oo isha ku haya. Cabdi soo dhawow. Muuse Biixi Cabdi waxaa la dhahay cabsi daraadeed wuxuu ka bixilayay madaxtooyada. maada horta ma santahay Muuse Biixi Cabdi xaalka oo ku adag yahay hadda waxaa leeyahay shaki weyn ay soo dhaxgalay ciidamadii asaga oo hogaaminayay maadaama 2 sano oo ku darsaday beesha caalamkana inay diidaan hore u sheegnay haddana wuxuu sameeyay madaxtooyada ayuu 3 beer ka bixilaya le Muuse Biixi Cabdi 3daas berina waxa ugu wacan horta 4 sargaal oo ka tirsan ciidamadiisa oo ciidanka ilaalada madaxtooyada gaarka ah ayuu ka tuuray xilka ka qaaday kadibna shaqadii ka joojiyay cabsi daraadeed. 4taas sargaal waxay isku beel yihiin isku dhow yihiin ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Ciro oo ka tirsan mucaaradka marka cabsi ayuu ka dareemay marka waxaa leeyahay hub aroorsi iyo dhaqdhaqaaq fara badan ee mucaaradku bilaabeen marka Muuse Biixi Cabdi waxa shaki ayaa arrintaas ka dareemay marka maadaama uu ka shakiyeen xilka ayuu ka tuuray ugu dambeyn hadda waxa 3 maalmood madaxtooyada ku jira xaalad amni oo halis ayuu wajahaya leeyahay Muuse Biixi Cabdi maalmaha soo socdan ma aqaan wuxuu ku dhaqaaqi doono laakiin 3 beri madaxtooyada Soomaaliland kama soo bixin leeyahay Muuse. ninkan in madax adag buu ahaa mucaaradkana wuxuu ka diiday in ay wada hadal ay yeeshaan ama arrintan doorasho la qabto wax laga bedelo. hadda waxaa la leeyahay khalkhal ka haysta wuxuu gurigiisa u aadi layahay xaafadiisa reerkiisa uu hoyan layahay away awoodii iyo wixii uu isku bidahayay madaxtooyada uga bixilaya ninkaas. horta ciidan markaa haysatid ciidamada beelaha meesha degan oo ka tirsan macnaha booliska iyo militariga ciidamadaas un ay adiga aad macnaha hogaaminaysid qabiil kasta ku jiro marka mucaaradkii haddii ay fahmi waayaan dadka meesha ugu jira kolba soo marayaan oo ay adeegsanayaan ama si kale ha u dhigaano ama macnaha ha ku kiciyaano ama dowladda waxa si kale ha u adeegsadaan laakiin mar walba in lagu kiciya la isku dayaa marka ciidankii kala shaki hadduu kala dhasho 2 group ama 3 group ay noqonayaan marka cabsida taas waaye Muuse Biixi xaaladiisa amni oo bixi karaa askari ayaa loo isticmaali karaa hadda kahor maadaama askari inuu bastoolad ku dhifto isku dayay mar uu tagay xarunta meesha la yiraahdo Dukaraq oo xuduudka ay la wadaagaan Puntland marka Muuse Biixi Cabdi waxaa la leeyahay shaki weyn ayaa soo galay mucaaradkuna hub aruursi iyo inay askarta shukaansadaan ay bilaabeen oo si gooni ula hadlaan boqor buurmada wato lacagan bixina marka Muuse Biixi xaaladiisa ma sahlano mucaaradiyadii dhinac walba ka soo galayo marka wuxuu dareemayaa cadaadis weyn oo imaanaya beesha caalamka iyo mucaaradka Soomaaliland. Cabdi sidoo kale wararkeena waxaa ku jiray haddaan qodobkan hore uga sii soconno Mukhtaar Roobow iyo wasiirka gaashaandhiga dagaal baan qaadanaa bay dheheen waxaana rabnaa bay dheheen beesha Digil iyo Mirifle dhulka ay degto inaan ururka Al-Shabaab aan ka kaxayno. horta mahadaw waxay ku siraan magaalada Muqdisho beelaha Digil iyo Mirifle waxayna go'aan ku gaareen in ururka Al-Shabaab ay ka saaraan shabeelooyinka iyo jubbooyinka meel walba ay ka degto iyo Bay Boqol meel walba beesha Digil iyo Mirifle ay ka degto laakiin waxay leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya labadaas shakhsi ayaa ka socdo dagaalkana si toos ah ay u geli doonaan waana 2 wasiir oo midka wasiir gaashaandhiga iyo wasiirka maxaa la yiraahdaa awqaafta iyo arrimaha diinta marka lafta kale arrintaas kuma faraxsana leeyahay laakiin ciidamo ay hogaaminayaan ayaa geli doona dagaalka maadaama ay ka baqayaan in dhulkaas mudug iyo laga soo kiciyo Hiiraan
haddana hadhow shabeellaha dhexe laga soo bixiyo inay usoo wareegi doonaan Bay iyo Bakool iyo Jubbooyinka. Marka Bay iyo Bakool iyo Jubbooyinka labadaba way degaan beelaha Digli iyo Mirifle. Marka waxay dhaheen wax anagana markeena dadaal ayaan sameynaynaa, maantana go-aan ayay gaareen, shir ayayna qabsadeen. Shirkina waxaa kasoo baxay in labadaas wasiir ay dagaalka hogaamiso. Ninka la yiraahdo Lafta Gareenna kuma faraxsana arrintaas, wuxuu asaga rabay wixii la hogaaminayo in asaga hogaamiyo, wixii la qabanayo in asaga la qabto. Laakiin wax dowladda federaalka Soomaaliya ka yimaado ma rabaan. Maamul goboleedyada intooda badanna kuma qanacsano in dowladda federaalka Soomaaliya iyo macawisleyda ay ka xoreeyaan ururka Al-Shabaab deegaanada ay haystaan, maadaama ay hadhow ay dhici karto in si kale loo Al-Shabaab hadda lagu gambanayo hadday meesha ka baxaan, in hadhow ayaga lagu soo jeesan karo ama macawisleyda ama dowladda ay awood yeelan karto oo hadhow farta la isugu yeeri doono. Marka cabsi weyn ayaa soo wajahda maamul goboleedyada, xaalkoodana wuxuu ku xun yahay. Lafta Gareenna hadda kuma qanacsana in ururka Al-Shabaab laga saaro Koonfur Galbeed. Lafta Gareen howlgalkaas ay nimankan ay qaadahayaan maadaama ay isku fiicnayn, muxuu samayn doonaa? Wallahi hadda Lafta Gareen waddo u banaan ma lahan. Maalin dhaweyt wuxuu u tagay dowladda Itoobiya ururka Al-Shabaab qaabka ula dagaalami lahaa inay ka caawiso ayuuna ka codsaday. Marka dowladda Itoobiyana maadaama Xashin Maxamuud asagana uu la kulmay, waxay dhaheen anaga si guud ayaan u bixin doonaa wixii aan bixinayno, awood military iyo hadday noqoto hub iyo wax walba ay noqoto dowladda federaalka Soomaaliya ay kala xiriiraysiin. ayadana howlgalka hadda wado macawisleyda iyo dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada ayaa howlgal weyn ku jiro. Marka maamul goboleedyada xiriirka faraha badnaa ay la yeelanayeen hadda wuu soo gaabanayaa maadaama Xashin Maxamuud iyo Itoobiya isfahmeen. Lafta Gareen hadda xaalka uu ku xun yahay. maamul goboleedkii aan halka sano oo ku darsaday aan dagaal ku jirinna waxaa la dhahay ma sii haynayo xilka. Cali Guudlaawe, ninka la Qorqoor iyo maxaa la dhahay sheegay Lafta Gareen iyo ninka la Jubbaland Axmed Madoobe, afartaas nin dagaal ma rabaan. waxaana leeyahay min hal sano ku darsadeen. Marka cadaadis weyn Xashin Maxamuud dhankiisa ugu imaanayo, wuxuuna dhahay maamul goboleedka ka qayb qaadi waaya dagaalka, aniga asaga xataa waan ku dari doonaa haddii ciidamada ay Al-Shabaab meesha ka saaraan, macal maamul goboleedkaas waa lagu dari doonaa, gacanta lagu dhigi doonaa. Okay, cabdi haddaan u dhaqaaqno dhinaca iyo gobolka Hiiraan oo dhowr biloodba dagaalo ay ka socdeen, Cali Jeyte Cismaan maanta qaybta hore ee furimaha dagaalka ciidamadu kula kulmay, wuxuuna sheegay inaan abaalmarin uu siin doono ninkii shabaaba ninkii dilaa oo qudha ka gooya inuu $4,000 uu siinayo. waxaasoo lacag xaga keeni 4,000 horta ma 5,000 aan lahay, 5,000 doolar bixin doonaa. laakiin wuxuu dhahay dhiirigelin ayay ciidamada u tahay. laakiin wuxuu dhahay ninkii askari shabaab inta dila meydkiisa ii keena 5,000 doolar siina. marka ciidamada waxaa umaleynaya inay shabaab layn doonaan oo shabaab la waayo. marka xaalku waa adag yahay. marka Cali Jeyte dhiirigelin weyn oo sameynaa, waa nin adag oo usoo baxay maxaa la dhahay reer Hiiraan dagaalkana ururka Al-Shabaab ay ka go-an tahay, wax badan oo sameyn doona. boqol shabaab haddii ay ciidamadu ay hal meel ku dilaan oo nin walba dhaho anaa dilay, waxaasoo lacag xagee u geyn muu bixin karaa? horta hadda 100 shabaab keenan ciidamada meesha jooga kolba horta lacag way leeyihiin, waa qasab. ninkan balqaad isaga sameeyay mogtahay, marka lacag waa laga rabaa sababtoo Cali Jeyte asaa ballan qaaday. marka waa arki doonaa mahad oo Hiiraan wixii kasoo kordho. waxaa kaloo ayadana jirto beelaha Soomaaliyeed ee ku biiraya dagaalka Hiiraan ayagoo macnaha ballanqaad weyn u sameeyey. beesha Mursado oo ballan qaaday inay soo gudbin doonto ciidamadeeda. maanta ciidamo ayay geysay halkaas beledweyne ka dejisay. waxayna ku biireen dagaalka Maxaasi, Moqokori iyo Sooman ka socdo. beesha Habargidir ayadana shalay ay ciidamo keentay, halkaas ayay iyagana ku biireen. maxaa la yidhahdaa Berrino beesha Mursado ayaa ciidan kale soo diri doonto. marka waxaan u maleynaa mahado gobolka Shabeellaha Dhexena ciidamada ay ka tirsan beesha Abgal ayaa imaan doona. marka beelaha Soomaaliyeed weliba gaar ahaan Hawiye aad ay isku biirsadeen. waxayna dhaheen walaaleen xawaalaha naga raali ahaadaan dagaalka maadaama aan ka gaabinay in mar hore ku biirna ay ahayd. hadda laakiin qalabkeena waxayna soo qaadanay wayna ka dhaweeyeen ballanqaadkii ay sameeyeen. marka waxaan u maleynaa ururka Al-Shabaab dagaalka ugu cuslaa in lagu qaadan doono maalmaha soo socda. kuwaasi waxay ahaayeen qodobo wararkeenii ugu dambeeyey oo aan kaga hadlaynay dagaalka ururka Al-Shabaab iyo Muuse Biixi oo xaaladdu ay ku cakiranto mucaaradku ay dhunta ugu jiraan. khayrta hawada nagala socotay meel kastoo aad joogtaan saasiyo nabadgeliyo.